maqlayo waa halkan waxaa idin kala hadlayaa Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi oo jooga magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin muhiim ah oo haddana khatar ah. arrintaasi waxa weeye xasuuqa lagu hayo dadka Soomaalida ah oo degan Soomaali galbeed oo ay ku hayaan qowmiyadda Oromada, ciidamada federaalka Itoobiya iyo ciidamada gobolka Oromiya. labadan beri gudahooda ilaa 600 oo qof baa dhintay. meelaha ugu daran oo lagu hayo weerarka waxa weeye Nageyle iyo Mooyaale iyo Baabuli. sidaad ogtihiin waxaa ka horeeyay weerarkan weeraro kale oo dhinacaas waqooyiga ah oo ilaa Harar ilaa Daal Kurniya Jigjiga ilaa gaarsiisan markaan reero u sheego ilaa Ciisaha. hadda dhinacaan suufka iyo haddii alla ku roon yahay garaha Soomaalida iyo muxuu ahaay to karanlaha iyo haddii alla ku roon yahay dadka halkaa degan oo Soomaalida ah weeye dadka la leynaya. weerar ballaaran oo aan caadi ahayn baa lagu hayaa. waxay ila tahay arrintaas arrin khatar weeye. waxyaalaha sababayna waa dhul ballaarsi, dhul fidsi iyo xasuuq dadka Soomaaliyeed. waxaan idiin sheegayaa Soomaaliyey haddii iyaga lasoo dhaafo Soomaali kalaa ku xigta oo Jamhuuriyadda Soomaaliya ah. joogsan mahayaan. waxaynu ognahay Oromadu inay 15 sano ugu dambeysay kusoo gurmaysay dalka Soomaaliya oo Jamhuuriyadda inta ah dalkoo dhan Soomaali weeye, Soomaali baana degan inta Jamhuuriyadda inay kusoo gurmaysay laga soo bilaabo Berbera, Hargeysa, Boosaaso, Garowe, Gaalkacyo ilaa muxuu ahaa dhinacan Gedo iyo Bay iyo Bakool oo iyagoo iska lugeynaya ay imanayeen. marka arrintaasi waxay hadda sababtay in marka weerar loo bedelo. markii la iska caabiyo la iska dhiciyo dadka masaakiinta beerahoodii jooga xoolahoodii dhaqanahaya, ciidamada federaalka Itoobiya iyo gobolka Oromiya oo hubaysan baa dalaq soo oranaya oo muxuu ahaay to hub ka culus kii ku garaacayo dadkii. waxyaalaha aan maqalay oo na soo gaaray waxaa ka mid a dhulkaan annagaan ahaan jiray, Soomaali baa naga qaaday. haddaanu dib u soo muxuu ahaay rogmanay, Etoobiyaan qabsanay, dowlad baan noqonay, baan haysanaa, waa badannahay iyo wax la mid ah. waxay Soomaalidu ku mahmahdaan nabar la filahayay naaqus mooye naxdin male. Oromo markay kusoo gurmaysay dalkeenna waan garanayay in arrimahan ay dhacayaan. maantay waxa weeye khatar baa lagu jiraa. waxaa la rabaa dadka walaalihiina oo Soomaalida ah oo dhulkoodii iyo hantidoodii lagu haysto in loo gurmado, garab iyo gaashaanba loo noqdo, dhaqaalo loo ururiyo, muxuu ahaay to la dejiyo, wax laga difaaco. waxaan kaloo dowladda Itoobiya u sheegaynaa oo hadda prime ministerkeedii uu leeyahay wixii hore oo dhan waa bedelay oo weliba isaguna Oromo yahay, arrinta tan inay muxuu ahaa wax ka qabtaan hadday run sheegayaan. haddii kalena waa wixii aan ku naqiinay habashida oo ah khayaano in meesha ay ku jirto. waxay Soomaalidu tiraahdaa maxaa weysha dibiga naasa adag iyo weedha maxaa kulmiyey. dhaqdhaqaaqa prime ministerka oo dowladaha dariska ah iyo gobolka uu ku marayo iyo arrintan waxa kulmiyey ayaa loo baahan yahay horta in sida isugu xiran yihiin. bal horta ma wax dowladda Itoobiya ka dambaysaa
ma wax dadka oromadu ay u qaateen baa inay muxuu ahayto imbicaas ama soo fufid inay muxuu ahayto marka soomaaliya inay ka bilaabaan muxuu ahayto xasuuqa iyo haddii ala ku dhul ballaarsiga arrintaa iyada ah waxaa kaloo laga rabaa dowladda soomaaliya inay tallaabo ka qaado oo ay muxuu ahaa dowladda etoobiya la hadasho digniin ka bixiso tiraahdo dadka soomaaliyeed sidaa loo dhaamo annagoo awalba 30 sano rafaadsanayn qurbo kala aadnay qaxooti gallay qaxnay barakacnay islaynay isnabcaanay dowlad la-aan nagu dhacday gumownay gaajoonnay haddii haddana naloo kugu daro intii awalba dhulkeeda deganayd oo dhulkaas soomaali galbeed la yidhaahdo in dagaal horle lagu qaado haddee waxa weeye dhibaato weyn weeye waxaanse rajaynayaa carabtaa waxay ku mahmahdaa ruba daaratin naafica wax dhib leh oo ku nafaca marka dambana nafac ku geystaa jiro waa maxay annagii sidaa isu nacnay haddaan maanta cadowna soo weeraro oo cadowgaasi aanu aragno inuusan na kala reebaynin oo soomaaliya oo dhan duulaan ku yahay waxaan rajaynaynaa in midnimo soomaaliyeed halkaa ay ka timaado oo annaga isnacaybkeennii iyo isdiidideennii ay isu beddesho ilaahay idankiis inaanu muxuu ahaa midowno oo u midowno cadowga u midowno annagu isjeclaano dowladnimadeeni soo noqoto laga yaabo markaa shantii soomaaliya aanu doonaynay inaan si sahlan ku helo oo dhibaatooyinka badan naga raaceen marka waxaan idinku boorinayaa saacadda ma weeye magaalada muqdisho waa seexanayaa mar dhow salaad subax baan tukanaa muxuu ahaa waxaan idinku dhiirigelinayaa idinku boorinayaa inta idaawanaysa iyo inta kale oo aan idaawanayno oo aan rajaynayo inaad idinku u gudbisaan warkaygan qayladhaan baanahay waxaan ku qayladhaaminayaa ku dhawaaqayaa ku boorinayaa ummadda soomaaliyeed inay isu gargaarto irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa baa nabiga calayh isalaatu wasalaam yiri inaad isu naxariisataan waajib bay ku tahay ehel baa leeyahay soomaalidu waa ehel waa dad maxaa kulligood isu dhow oo qaraabo ah oo hal qabiil ah muxuu ahaa dadkaas oromada cawaanka ah oo nagu soo duulay inaanu iska dhicino muxuu ahaa oo aanu u guntano dadka yaga anigu waxaan la xiriiray magaalada nagayda dad joogaan la xiriiray